بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. qaybtan waa qaybtii labaad oo barnaamijka aan kaga hadlaynay cuntada adduunka isbedeshay ama nidaamka beeraha oo wax laga bedelay cuntadana isbedeshay maxay keentay mushkiladda ay keentay maxay tahay sayse wax isu bedeleen. marka qaybtii labaad marka laga soo tago horudhaca ayaan maraynaa. marka qaybtii hadda hore waxaan kaga soo hadalnay maxay tahay GMO macnihiisa iyo maaragtay sidee scientifically wax looga bedelay cuntadii maaragtay dhirtii mirihii dhulka lagu abuuri jiray cuntada maaragtay ilaahay nooga dhigay. marka taas waxaan isla fiirinay yani sidii loo sameeyay iyadoo si aad u fudud aan iskugu dayay inaan u sharaxo. intaas waxaa dheereyd inaan isla fiirinay yani maxay ahayd waxyaabaha asbaabta keentay iyaga ay leeyihiin asbaabta keentay inaan nidaamka ilaahay wax ka bedelno asbaabta keentay oo ay kaga hadleen dhowr asbaabood oo aan kaga soo hadalnay tii hore maaragtay asbaabahaas oo adiga dhowr ah. marka waxyaabaha hadda maaragtay ii sheeg oo hadda ugu badan adduunka maaragtay ka socda waa waxyaabo ilaah hore uu noogu sii sheegay waxyaabo badan in adduunkan la bedeli doono oo shaytaan yani ibliis lacnatullah calayhi uu si fiican maaragtay si badan waxyaabo badan uu wax ka bedeli doono asagii junuudiisa. marka wixiina way socdaan taas baa hadda isla fiirinaynaa. marka hadda waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inay maaragtay cayayaanka iska celin karto saas darteed wax uga bedelna environmentiga yani inay maaragtay waxyaabaha dhibaatada uga imaanaya meesha ay beerta ku taalo iyadana wixii maaragtay inay iska ilaaliso ama iska celin karto inay maaragtay waqti badan ooli karto in chemical treatments waxyaabaha chemicalka loo isticmaali doono in ay u adkeysan doonto. waxaa ka mid ay leeyihiin yani inay nafaqo ziyaadiso waana totally opposite waaye wax nafaqo meeshaas kuma jiraan iyo in ay يعني cuntada hadda adduunka waxay leeyihiin adduunka dadkii way bateen cuntadina way yaraatay adduunka maadaama ay cuntadii yaraatay waxaan rabnaa inaan cuntada badino marka chemicalka aan ku darayno yani miraha adduunka aan ka bedelayno chemicalka aan ku darayno waxaan ugu daraynaa inay cuntadii noo badato sidaas darteed oo dadka kala gaari karto yani qorshe ilaahay uu leeyahay ayay iyaga rabaan marka inay maaragtay ay la wareegaan subxaan allah. marka waxyaabahaas oo dhan ayaa jira. marka hadda wixii ugu dambeeyay aan ka hadalnay waxay ahayd oo aan qaybtii hore maaragtay aan kaga hadalnay taas waan kaga hadalnay sababahaas ay iyaga sheegeen subxaan allah. waxaa kaloo marka aan ka hadalnay waxyaabaha chemicalka ay ku shubaan ama ay ku buufiyaan beeraha waayadan dambe aad bay chemicalka ugu bateen chemicalkaas mid ka mid ah ayaan maaragtay xoogaa soo qaadanay oo la yiraahdo herbicideska marka waxaan ka hadalnay in asalkiisaba uu lagu bilaabay research based muxuu ahayd program ayuu ku socday oo ah waagii dagaalkii labaad adduunka iyo Vietnam dagaalkii ka socday oo Mareykanka uu ku qaaday iyo waxaas ayay ahayd sababihii maaragtay lagu helay iyadoo la raadinayo yani dhulkii cagaarka badnaa oo Vietnam sidee cagaarkaas loo kala yareeyaa oo aan cadowga kor uga maaragtay uga soo weerari karnaa oo kale tiina maaragtay waa si fiican uga hadalnay. marka dabcan Mareykanka markii uu ku soo duulay Vietnam waa ognahay in uu ku jabay oo looga adkaaday waxyaabaha ilaahay uu ku maneystay dhulkaasna waxaa ka mid ah geedahaas oo aadka u badan oo ay ku dhuuman jireen dadkii waddankooda difaacanayay. haddana maaragtay waxyaabo badan way baabi'iyeen masalan suntaas markay soo saareen suntii iyada ahayd oo dhulka lagula dagaalamay ayaa marka waxaa laga dhigay hadda wax beeraha loo adeegsado. taasaan rabaa inaan meeshaas uu qof ka fahmo yani xaggee meeshan wax isaga xirmayaan waxaan herbicide-ka la yiraahdo asalkeedii hub wuxuu ahaa lagula dagaalamayo dhirtu baabi'iyaan. markii dambena waxay ogaadeen in uu yani uu saameyn karo growth hormone-ka
oo qaybta koritaanka dhirta dhacaanka qaabilsan in uu wax ka bedeli karay ogaadeen in haddii wax haddii lagu darana marna haddii lagu ziyaadiyana ay dhirtii aad u dheeraanayso, haddii laga yareeyana dhirtii ay gaabanayso, waxaas camal ayay ogaadeen. haddii maaragtay fruitka lagu daro inay maaragtay weyneynayo, inuu fruitka yareyn karo, in kalarka laga bedeli karo, waxyaabo badan ay ka dhaxeleen. dabcan waa chemical waxaan aan ka hadlayno, dad maaragtay laababka lacag badan inta la siiyey laababka la yiri baara wax walba sida loo maaragtay loo fasaadin karo ayaa waxaan soo saaray. marka ilaahay maaragtay nasal allah salaama. marka almuhim qaybtii hore waa taas. hadda marka herbicide-ka waxaa ka mid ah herbicide-ka hoos imaanaya wax kaloo la yiraahdo iyadana beeraha loo isticmaalo oo la yiraahdo Roundup. Roundup-kan waxa waaye Roundup waa one word, Roundup oo isku xiran oo one word ah. Roundup waa pesticides wuxuu ka mid yahay pesticides-ka, wuxuuna hoos yimaadaa herbicide-ku hoos yimaadaa. marka kana waa nooc kale oo isagana aad khatar u ah. waxaan dhahnay herbicides-ka waxaa loo isticmaalaa waa 80% yani boqolkiiba 80 ayaa loo isticmaalaa waxyaabaha dhirta, daawooyinka dhirta waxa hadda loo yaqaan. marka maadaama boqolkiiba 80 iyadana waxaa la mid ah usoo dhow waxaan la yiraahdo Roundup-ka. Roundup-ka waa magac loo sameeyey oo yani dabcan way qariyaan inta badan cuntooyinka waxyaabaha aadka khatarta u ah waa la qariyaa magacyadooda, magacyo kale la siiyaa. marka hadda midkan Roundup waa maaragtay magac trademark, yani waa wixii magaci suuqa loo yaqaanay, laakiin asalkiisa wuxuu ka samaysan yahay chemical la yiraahdo glyphosate. marka glyphosate-kan yani waa isagana wax aad khatar u ah oo loogu talagalay. sidoo kale isagana waxay ku leeyihiin waa weed killer, yani waxyaabahaas oo kale wuxuu dilayaa maaragtay cayayaanka ayuu ka dilayaa beeraha. laakiin markii ayadana si gaara loo baaray oo la fiiriyay ilaa wax walba soo baxo, dad waxaa jira ka shaqeynaya waxaan chemicalkan cusub soo baxay bini aadamka maxay maaragtay dhibaato u keenayaan. marka dhibaatooyinka mar dhanaan rabnaa inaan ka hadalno insha allah, oo waxyaabahan chemicalska noocyadooda magacyadoodii hadda ka hadlaya, laakiin dhibaatooyinkooda gadaal dambe maaragtay ayay ka imaanayaan insha allah qaybaha dambe. laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa yani tacriif ama isbarid chemicalska nooca loo isticmaalayo. marka hadda marka noocan Roundup-ka la leeyahay magaciisa ma garanayo Soomaaliya siday ku soo gaareen, magacyada ay Soomaaliya ku soo gaareen. dabcan waxyaabo badan Soomaaliya yimid oo aan controlnayn. marka dad badan ayaa bahashan in badan yani 9 sano cuntada wax ka 9 sano oo aan cuntada aad wax uga baaray xagga GMO-ga. waxaan maaragtay aad bay igu soo noqonaysa bahashan Roundup-ka marka laga hadlayo digniin dadka marka looga digayo cuntada cusub iyo chemicalka cusub oo adduunka lagu soo daray cuntada. marka Roundup-ka aad buu khatar u badan yahay, laakiin insha allah mar dhanba si fiican aan uga hadlaynaa waxyaabaha dhibaatooyinka ay keeni karaan chemicalska noocaana. kolay waxaa hadda maaragtay si maaragtay in yar aan ka dhigi karaa. waxaa jirto 2014 article oo ayaa waxaa lagu soo qaatay yani dad badan ayaa waxay soo sheegeen inay waxaan dhibaato ugu jirto bini aadamka. marka waxaa maaragtay 2014 waxaa la soo ogaaday in uu chemicalka noocaana saameyn karo wax la yiraahdo B cells oo jirka bini aadamka ku jiro oo waxyaabaha qanjirada oo kale ama qanjirada waxyaabaha ay sameeyaan waxaa kamid ah difaaca jirka, hormones ay soo saaraan. marka qaybta difaaca jirka B cells waxa la dhahaa jiro. marka waxaa la dhahay chemicalkan wuxuu toos uu maaragtay ugu tagi karaa ama dhibaato u gaarsiin karaa qaybtaas maaragtay oo jirka qaabilsan, weliba difaaca jirka qaabilsan. marka World Health Organization Agency for Research on Cancer group la yiraahdana waxay soo saareen
oo ay maaragtay ay ka dhigeen yacni maaragtay wax dadka la ogeysiinayo ay soo maaragtay dadka usoo gudbiyeen in ay bahalkan chemicalka noocan round up uu ka samaysan yahay waxaa la yidhahdaa glyphosate in uu u yahay bini aadamka waxyaabaha kansarka u keeni kara ayuu ka mid yahay ayay dhaheen marka waa waxyaabaha kansarka keeni kara ka mid tahay dabcan marka insha allah chemicalka maalin dhan baa kaga hadlaynaa chemicalska ama qayb dhan baa kaga hadlaynaa xanuunada ay keeni karaan marka taas waa taas marka waxa hadda ugu weyn aan ka hadlayno waxay ahayd yacni maxaa cuntada iska bedelay cuntadii waxaa iska bedelay nidaamkan GMO-ga waxaa la socda intaasoo chemical oo lasoo saaray oo lasoo invent gareeyay ama lasoo alifay oo la keenay in lagu buufiyo beerihii marka maxay noqdeen beerihii waxay noqdeen wax lagu cayaaro masalan أنا wax kale ma dhihi karo waxaan dhihi karaa wax lagu cayaaro yani scientists waxaa jiro oo lacaga inta la iska siiyey waxay rabaan maanta oo dhan iska soo saaraya markay soo saaraanna dabcan dee dad badan oo aanan ka fikiraynin bini aadamka iyo sida loogu naxariisto ayaa yani lacagta ugu badan adduunka haysta maxay keenayaan marka in dadkii dhibaato badan ay waxaan kasoo gaaraan marka xataa hadday dhibaato kasoo gaartay dadkii waa la socodsiinaya wax dhiba ku jira ma jiraan يعني يعني ولا أبروف كرينا أما ولا أقلانيا إن وحنا الاستعمال إذا لو أجيهاي إن أي كجران حنون وحكي إيمان كرم مركا هادو حاجر كمباني اللي هذا مونساتو أمريكا اللي قال لي هاي طبعا حنك هاد لنا مشكلة نمبر رأس المشكلة وأمريكا يعني أمريكا وحواي أدونك فساد وينك ودا waxaan dagaalada adduunka ka dhacay oo dhan waxa dheer dagaalo nooc kala socda nooc hadda aan ka hadlayno waxa nooca cuntada iyo daawada waxa ay dadka ku sameynayaan marka Monsanto waxa waaye waa company American ah oo u qaabilsan yani miraha adduunka oo dhan waa dadka bixiya miraha adduunka lagu beero dabcan waxaan ka hadlaynaa yani markii mirihii ilaahay uu nasiyay la bedelay oo wax cusub ay soo baxeen waxa bilaabatay in la aruuriyo mirihii saxda ahaa adduunka oo dhan waxa laga aruuriyay mirihii originalka ahaa ama ilaahay ugu talagalay in cuntadii saxda ahayd aan ka helno mirahaas adduunka oo dhan baa laga aruuriyay meel walba ma garanayo Soomaaliya hadday wax ka harsan yihiin marka mirahaas waa la aruuriyay meel baa adduunka lagu soo xareeyay dabcan America iyo ciidaha la shaqeynaya ay ka warqabaan mirahaas way xareysan yihiin qof maanta heli karana aad buu u yaryahay marka haddii la helno lacag badan baa lagu gadaa marka mirihii maadaama la aruuriyay marka Monsanto waxay u qaabilsan tahay adduunka in ay mirahaas siiso adduunka u qaybiso miraha cusub ee GMO ga la yiraahdo dadkii yiraahdo beeraan rabnaa inaan sameysano Monsanto waxay soo diraysaa mirahaas oo lacag looga gadanaya mirahaas meel walba adduunka waa la gaarsiiyay maadaama mushkilada noocaas ay already jirto waxa jirto mushkilo iska timaado oo ilaahay qadar ilaahay meel un ka dhacdo iyo mushkilo waxa jirto dad ka shaqeynayaan mushkilada aan ka hadlayno waa wax ay bin aadamka ka shaqeynayaan qaarkood marka wixii waxa rabaa inuu qofka ku baraarugo maxaa adduunka lagu nool yahay hadda waayadan dambe dadku iska socdaan way cunaan way cabaan waxba yani dhinacyadooda ma fiirinayaan isleedahay inta badan ilaa man raximillah marka waxa loo baahan yahay in la fiiriyo waxa cunayna maxay yihiin waxa cabayna maxay yihiin marka dadkan mirahaas ay soo saar mirahaas oo badan ay hayaan oo iyaga ay sameeyaan oo chemicalkii laabka lagu soo alifay waxaas oo lagu soo daray adduunkii oo dhan ay gaarsiiyeen marka meel walba hadda waxa lagu leeyahay GMO ga meel walba yaalaan wax ka fakada ilaahay ayaa yaqaan marka dadka hadda ugu roonaan dhihi karno Allahu a'lam maybe inay ka nabad galeen ama ay dhibaatada hadda cuntada aan ka hadli doono ay ugu yartahay inay wax ka soo gaarto dadka beeraleyda iyo dadka baadiyaha yani baadiyaha ku nool ama beeraleyda dabcan baadiye waxa jirto oo baastada iyo bariiska waxaas laga cuno laakiin waxaan ka hadlaynaa baadiyaha weli ku nool noloshoodii runta ahayd oo ay waaweyaasha ka soo gaareen iyo beeraleyda sidaas oo kale iyagana u nool oo wixii beertooda ka soo baxay dadkaas ugu dhow inay ka badbaadaan waxyaabaha dhibaatooyinka aan hadda ka hadlayno oo aan rabno maanta barnaamijkan in maaragtay aan kaga hadalno haddii ilaahay ilaado marka wixii GMO gi
waxaan dhahnay waa fahanay waxay sababaha way sheegeen waxaan ka hadalnay maaragtay ii sheeg dhibaatooyinka maaragtay sababaha ay iyaga u keeneen dabcan marka waxaa jirto waxyaabaha chemicalska beeraha lagu sameeyey oo beertii ay kusoo baxday iyo isla markaas cuntadii marka beerta ay kasoo baxdo yani waxaan ognahay kontonkii sano lasoo dhaafay adduunka warshadeyn xoog laha ka socotay waxyaabo badan warshado badanaa lagu soo kordhiyey marka cuntadii noocan ahayd markay keliya waxaan maraynaa beerta kasoo go-aysa hadda markay beerta kasoo go-aysa waxaan nidhi 40% oo waxaa kaasoo gaaraya nafaqa ah ka waran markii ay gasho warshad oo la warshadeeyo oo la sameeyo maaragtay alaabta cuntadii la xirxiro oo gasacyo lagu guro ama dhalooyin lagu guro ama baakado lagu guro ama maaragtay bacyaalo lagu guro caagag lagu guro maxaa soo baxaya marka cuntada noocan marka dabka laga soo qaado masalan galeydii ama masagadii laga soo keeno beerta waa la kariyay waa la cunay waxaa ka heshay 40% ka waran marka galeydii la soo qaaday ama masagadii ama qamadigii warshad la geliyay chemical lagu daray la soo maaragtay chemical kale loo isticmaalay marka halkaas waxaa lagu leeyahay Allahu a'lam waa almost zero nutrition wax nafaqa oo halka ka soo galay qofka ma jirto nafaqada iska daaya dhibaatooyin badan ka yimid oo ah xagga caafimaadka dabcan ilaahay subxaanahu wa ta'ala markii wax walba uu noogu sameeyay nidaamkooda hadii laga bedelo waxay rabaan ha ahaadaan mushkila ka timaado hadda marka mushkilada ka timid waxyaabaha noocan waxaan rabnaa mushkilada yani inaan maaragtay si toos uga hadalno oo ah xanuunada ay keeneen marka ani hadda ka hor waxaan iri kansar ay igu dhacay kansarkii igu dhacayna yani qadar allah ma shaa facal alxamdulillah ilaahay waa iga caafiyey laakiin maxaa keenay marka aniga markaa researchigan iyo waxyaabahan iyo waxbarashadan maaragtay madax banaan markaan sameeyay oo aad aan wax u baarayay iskuul ani uma tagin arrimahan markay noqoto nafaqada iyo cuntada inaan raadiyo oo aan ku takhasuso waxyaabaha cuntada iyo daawada ku jira inaan ogaado aan wax ka bartay waa wax aniga aan alxamdulillah ilaahay igu ilhaamiyey ilaahay maaragtay ii qadaray inaan maaragtay wax ka baaro ima barin marka aniga ayaa waqti badan iga qaatay waxaan ka hadlaynaa 12 sano 2005 markaa bilaabo maanta la marayo 2019 waa intaas adii 14 sano ayaan waxaan ku dhex jiraa marka 14 sano yani 9 sano kamid ahna internetka si fiican maaragtay loo furay oo information badan la soo galiyay markaasaan marka aad u sii ogaaday cuntada iyo nooca la sameeyay la cuno maanta iyo waxay tahay iyo waxay keenayso waxaas oo dhan markay ii soo baxeen waxa ii cadaatay aniga kansarkii igu dhacay inuu meel kale ka imaanin kansarkaas inuu ka yimid cuntada la bedelay iyada markay beerta lagu beerayna chemical ku jirto markii warshadaha la galiyayna chemical lagu daray macnaheedu waxa soo baxday suntaas oo jirka markay ka badato intuu jirka isdifaaci karo isdifaacaya aad buu isu difaaca jirka ilaahay ku program gareey laakiin markuu jirka isdifaacayo waa markuu haysto nafaqo ku filan dabcan marka anaga Soomaalina waxaan cunay baasta iyo bariis iyo bur ma jirto nafaqo daradii maxay keentay marka in xanuunkii jirkaygu iska celin waayo dabcan hadaa cunaay cunto fiican waxa laga yaabi lahaa inuu kansarkaasi tabul arki lahayn sida ilaahay nagu baray sunnatul hayaa marka waxa dhacday in cuntadii Soomaalida ay iga difaaci weyday xanuunka markuu jirkayga soo galay marka taasna maxay keentay yani iyadoo beerihii la bedelay oo la sameeyay cuntadii la soo warshaday la sameeyay haddana anagii cunto waxaan ka dhiganay kaliya wixii warshadaha ka soo baxay ayaa cunto ka dhiganay adduunkana waa nala qabaa Soomaali kaliya ma marka Soomaalida marka waxay ku yani dhibaatadeeda tahay waa dadka kaliya oo ka faana wax wadankooda ka soo baxay dadka kaliya oo ka faana wadankooda cuntada ka soo baxdo waxa la arkay Soomaalida inay yihiin ilaa man rahimallah yani waxaan ka hadlaynaa qilla dad aad u yar ayaa maaragtay wadankooda ku faana ama cuno wixii ka soo baxa يعني Soomaali dadka Soomaalida ah laakiin waxay u bateen dadkeen u bateen in la leeyahay shaygan original miya macnaheedu waxa waa dibadda ma laga keenay hadaan dibadda laga keenin qiimo ma leh ama tayo ma leh waana bilcagsi total bilcagsi wixii Soomaaliya ay lahayd oo dhan
waxaan aragnay faa'iidada iyo caafimaadka dhan inay ku jiraan dabcan Soomaaliya wadan horumaray ma aha oo industrial waxa la dhaho revolution badan ma soo gaarin laakiin taas aan waxa u arkaa nicmadii ugu weyneed oo wadanka ku dhacday nicmooyinka ugu waaweyn oo ku dhacay wadanka Soomaaliya waa inayna soo gaarin ilbaxnimada adduunka uu gaaray inayna soo gaarin alxamdulillah wax badan nagama soo gaarin ilaahay aan noo ilaaliyo nolosheena maaragtay wax yaraan soo gaaray laakiin waa ka soo noqon karnaa haddii ilaahay raado hadaan warshado waaweyn maanta wadanka noogu olin oo hawada naga wasakheynaayo oo badda iyo dhulkii naga wasakheynaayo oo haddana cuntadii aan cunaynay waxaas oo dhan ee warshadahaas ay maaragtay dadka ka shaqeynayay iyo wixii oo dhan maaragtay dhibaatooyin ka soo gaareen alxamdulillah warshado ma lihin badan dhowr warshadood aan lahayn tiina ilaahay baa maaragtay ka bixiyay jawiga marka dagaalada dhaceen hadda marka ma xuma in warshad la sameeyo laakiin warshad haddii la sameysanayo waa inay ahaato mid aan dhibaato u keenaynin environmentiga ama yacni meesha laga sameeyey iyo dadka ku nool iyo dhulka iyo waxa ay soo saareysana dhibaato inayna u keenaynin bini aadamka iyo xayawaanka iyo dhulka iyo dhirta iyo badda marka haddii warshadaha adduunka oo dhan haddaa fiirisid intaba dhibaato ay u geystaan marka maxay nagala maqan tahay warshad marka hadda waxaan ka hadlayno waa in maaragtay haddaan fiirino waxa aan cunayno aan cabayno mar haddii ayna naga celin karin xanuun hadday naga celin karin maxaan marka lacagna way naga baxday laba jeer lacag naga baxaysaa waxa waa marka cuntada la soo gatay iyo markii hadhow inta la xanuunsado daawada lagu bixinayo laba jeer lacagta baxaysaa marka soo kama fiicna inuu qofka ka fiirsado waxa uu cunayo ilaa dhakhtar weyn oo wax ka bartay jiro Falastiini ah wuxuu yiraahdaa shicaar weyn oo leeyahay غذائي دوائي معناها عربي waxa waaye cuntadeeda waa daawadeeda waan exactly wax hadda aan wadno cuntada inay daawadii noqoto laana dhaqaatiirta aan wax ka bartay oo natural medicine bay badan yihiin waxay isugu jiraan dhaqaatiir maaragtay western ah iyo dhaqaatiir maaragtay muslimiin ah marka alxamdulillah rabbil caalamiin ninkan aad buu maaragtay barnaamijyadiisa oo la socon jiray wuxuu ka hadlayaa cuntada cuntid iyada waxay ku noqonaysaa daawo ama xanuun marka si cuntadeena ay daawo noogu noqoto waa inaan marka ku dadaalno cuntadii saxda ah inaan cunno oo ah tii wadankeena ka soo baxday iyadoo warshad soo gelin insha Allah mirahan cusub oo la keenay adduunkana haddii kuwii hore aan hayno intaan iska joojino mid cusub la bilaabo haddii ilaahay insha Allah barnaamijka qaybta xigta waxaan ka hadli doonaa biidnillah dhibaatooyinka ay keeni karaan xanuunada ay keeni karaan yacni cuntada noocan ah iyo marka la warshadeeyo marka hadda barnaamijka soo socdo waxaan kaga hadlaynaa warshadeynta qaybta warshadeynta intaan la gaarin xanuunada ay keeneen qaybta warshadeynta kaga hadlaynaa qaybta soo socota insha Allah tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh